neefyo ma ogoli inuu iga sarrayn karo anna garasho sogordahan sooriye ruux ugama dhigo Soomaali baana ninna madax salaax iyo kama yeela seetada Soomaali wuxuu ka yimi ama uu dhabarka ku hayaa ereyada dhala rugmeeyo kala ah Soomaali duumaale iyo Soomaali dhulka Soomaalida kolkii hore waxa loo aqoon jiray dalkii dilka weynaa dhulkii wadkoona iyo dhulkii bayaasha culimada ku xeel dheer ablaableynta tafsiirka aadamaha guud ahaan way soo khilaafsan yihiin halkay ka soo jeeda dalka Soomaalida loo yaqaan oo la dhaho waxay ka soo tagfiimeen qowmiyad kale isku dhaho kushitiida sidoo kale luqadda Soomaaliga waxa lagu daraa luqadaha kushitiga ee laga hadla Kenya, Tanzania, Suudaan, Masar, Eritrea iyo Itoobiya iyadoona ah luqadda Soomaaliga mid ay dadka ugu badan ku hadlaan marka laga yimaado mid ay urmadu ku xeel dheeraa cilmi-afeedada bulshada dunida oo la dhihi jiray Dr. Hatim Ford wuxuu cadeeyay in afka meemeyga uu yahay mid asal ah oo aan ka buuxin erayo Carabiya ama Ingiriis magaca loo aqoon jiray magaalada Muqdisho waa Sirboon waxaana ereyga Muqdisho loola jeeda maqdisha oo ah kursiga boqorka ama meesha ugu wanaagsan ee boqorku fadhiisto ama xarun ka dhigto macnaha xamar wuxuu gal laba qolo oo kala ah in magaca xamar uu ka yimi luqadda Carabiga sida al-Hamra sida ay kuwa kalena ku sheegeen kelmadda ximyar oo ahayd dawladda Islaamka ka hor dhidibada loo aasay waqti aad u fog oo taariikhyadu isku khilaafsan yihiin waxayna sheegaan magaalada in la aasaasay qarnigii labaad ama kii saddexaad taariikhda miilaadiga Muqdisho waxay ahaan jirtay xarun ganacsi oo caan ka ah dunida waxayna ka koobnaan jirtay 6 xaafadood oo kala xukumi Soomaaliya gobolka ugu badka yar waa gobolka Banaadir waana gobolka ugu xuduudaha yar wuxuuna xuduud la leeyahay gobolada Shabeellooyinka gobolka xuduudaha badan waxa weeye gobolka Baay oo xuduud la leh gobolada Hiiraan, Bakool, Gedo, Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe sidoo kale gobolka Bakaay waxa laga helaa buur Haybe oo ah buurta ugu dheer koonfurta magaca hore loo aqoon jiray degmada Balcad ee dhacda gobolka Shabeellada Dhexe waa Tintiinley gobolka Jubbada Dhexe waa gobolka kaliya ee maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba wuxuuna ku qani ku xooyinka keymaha iyo ciidda hodanka ee beerashada ku fiican wabiga Shabeelle wuxuu Soomaaliya ka soo galaa gobolka Hiiraan isagoo ku dhamaado meesha yiraahdo Dhay Tubaako Jubba wuxuuna isagana Soomaaliya ka soo galaa gobolka Gedo wuxuuna ku dhamaadaa ubada kaga darsoomaa goobta dalxiiska ku wacan ee Bogweyn dhulbaraha ama Equator-ka waxa xariiqa toosan ee adduunka u kala qaybiya waqooyi iyo koonfur Soomaaliya ka mara tuulo loo yiraahdo Sankuuni oo ku taala gobolka Jubbada Hoose بالله توفيق برنامج كان مانتي تاسو كويجي فضلا channel ka dalka cusub taasi subscribe saar si barnaamijyo xiiso badan aad u